aniga kaama gadaayo laakiin waxaa la rabaa mataqaanaa fiiri aniga aad waxba kala iibsanayo haddaad fiidiyoyo rabtid in lagaa iibiyo waa helaysaa gurubyo ayaa jira meesha laakiin waxaan kuu sheegaa waxay tarto colbo aniga meeshaas aan kaa soco video ma iibsada aniga gabar miskiina videogeedana ma iibsado sabab igu kalifaysana ma lahan maxaase kaga doonaa video inaa iibsada soo dhawaada kheyrta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee barnaamijkan daawan doonto ama hadda daawanayso waxaan rabaa inaan idiin sheego arrintii munasar iyo aniga waxay ahayd barnaamijkaas magaciisana loogu magac daray the good guy and the bad guy barnaamijkaasiti waxaa jira barnaamijyo kale oo ka horreeyey oo anigi munasar waxaan ahayn dad wada shaqayn jiray laakiin aniga follower badan iyo barnaamijkayga iyo baraha bulshada iyo sidaa ugama badnayn anigu waxaan ahaa fikradka ninka barnaamijka sameeyaha fuliyahana wuxuu ahaa munasar iyo niman kaloo badan oo hadda aan rabin inaan inta ku xuso hadda waxaa is haysto waa anigii munasar wuxuu sheegay maalintaas inuu wariye yahay ayuu sheegtaa wariyena waxaa lagu yaqaanaa assalaamu calaykum inuu yidhaahdo guys kadib uu yidhahdo anigoo magacaygu yahay hebel hebel munasar ahna wariye caana u shaqeeya kambanigaas ka shaqeeya kambanigaas maanta waxaan rabaa barnaamij inaan idiin soo tabiyo barnaamijkaasiiti oo ah barnaamij quseeyo gabadhan queen canab waxaana qadka hadda iigu jiro hebel hebel oo ah aniga the bad guy ayaa qadka iigu jiro oo la yidhaahdo hebel hebel ahna mid ka mid ah marka taas waxay noqonaysaa asiga warinimadiisa doorkii uu ku lahaa anigana markaasayti markuu usoo gudbano magaceyga sheego waraysiga wax uu quseeyo dadkuna markaasayti waxay arki lahaayeen sheeko professional ah sheekada intaba mayn dhicin sida hadda kommentiyada ku qoran inta badan marka dadku way fahamsan yihiin laakiin ani arrintaa hadda waxaan u sheegaa waxay tahay arrinta muqdisho ma la socotaan munasar filimaanta uu soo dayn jiray ee fiidiyoyada dukaamada la dhaco kaamirada idiin soo dayn jiray muqdisho wax ka dhaca ay dadka ku kala yaaci jireen ninkan dowladna uma shaqeeyo dukaamadan asiga ma lahan fikraddaasaytin anigaa lahaa inaan wax qirto ninka raggaa wax qirtana ceeb ma aha ninkan wuxuu ahaa asiga fuliyaha laakiin fikirka maadaama youtuber yahay nin walaalana uu yahay turkigana ku nool rabana qurbe inuu tago waan garan karaa marka ninkan fideogan hadda maalin horeeto uu isaga dhigaayo uusaan dhabanada qabsanayay horto waxaan ku qasbay inuusan magaceygana soo dhigin meesha fideogana maarkino sawirkaygana uuna soo dhigin ninkan nambarkaygana wuu hayaa teleefonkayga wuu hayaa halkaas teleefonna ma ahna 6 teleefon oo aniga guriga ii taallo ayaa jirto wuu wada hayaa ninkan marka intaasoo dhan muuna sheegin laakiin dadka qoraalada soo qoraayay dad waxaa jira caaqilina oo wax fahamsan oo ogaa inaan ninkan is ogeyn marka dadka qaarna followerskiisa badan maadaama ay ku xiran yihiin aniga fikirka inaan keeno asigana uu fuliyo asigana uu ka faa'iido aniga laakiin ujeedadeedu waxay ahayd wax kasta oo anshax xumo ah oo bulshada Soomaaliyeed ku socdo in loo maro goob walba oo weyn oo dad badan ay ku xiran yihiin si dadku warbixinta u gaarto warbixinta sidee dadka lagu gaarsiin karaa warbixinta dadku kuma gaarayso walaalayaal assalaamu calaykum walaalayaal gabdhaha yaana sidaa la yeelay walaalayaal waxaasayti dadku waa ka daalay oohin dadku waa ka daalay wixiina ma istaagayaan marka maxaa loo baahan yahay asigana muxuu jecel yahay in la yidhaahdo munasar wariyaha sare maanta barnaamij soo deeyey meeshii kaamirada inuu fadhiisto xataa fikirkaasayti aniga 2 option aa siiyey inta magaceyga soo qaadatid barnaamij ku furtid sawirkaygana aad soo dhigtid ma doonayaan ku dhahay maanan filaynin inay dad badan codkayga ay garan doonaan laakiin maanta waxaa ila cadday in dad badan ay ila soo xiriirayaan maadaama dad badan ay ila soo xiriirayaan marka saaxiibkay wuxuu sameynayaa marka waxaa dhacday marka ninkan maadaama the good guy uu iska dhigaayay anigana the bad guy inuu meesha soo fadhiisto asiga suud soo xirto isaga kiindhigo taa waa qodob arrinta kale oo muqdisho aan rabay inaan idiin sheegano waxay tahay oo youtuberkana ay wax badan ay ka faa'iidi karaan muqdisho ma la socotaa fiidiyoda oo soo dayn jirnay
fikradda sanaa lahaa inuu gabdho iyo wiilal inta diro kaamira lagu qarsoon meesha la geliyo oo dukaanlahana og yahay si dukaanlahana uu uga faa'iido dukaankiisa caan u noqdo maadaama baraha bulshada laga fiirsanayo dukaanka magaciisana la arkaayo bajaaj driverkii asigana oo bannaanka niminka keenaayo kaamiradu bannaanka lagu xiraayo midna bannaanka lagu xiro midna gudaha lagu xiraayo fikirka sanaa lahaa ninkan saaxiibkay muddo badan baa wada shaqayn jirnay fikraddaas marka fideogii markii loo xiro waa loo soo diraa dukaanlihii laptop u yaallo uu u soo diraa qaarka marka filimkaas samaynayana lacagay ka helaan oo maalintaas $10 qofkii la siiyo faa'iiduu ka helaa asiga youtube-kiisu ku kala kacsanaa hadda waa barnaamij asagana hid ah waxaan la samayn karin ma lahan hadda tusaale injineerka guriga marka uu dhisaayo fundiyada shaqadooda maxaa waaye inay guriga shubka iyo ku shubaan maano injineerkana inuu dhulka cabiro qiimaha ku baxaayo intuu leeyahay square buildingka intuu la ekaan karo waxaasoo dhan injineerka shaqadiista injineer weli maaragtay dhiiqi iyo lugaha kula jira iyo nuuriid iyo wax ninkan marka hadda dhiiquu lugaha kula jiraa nuuriid iyo lugaha kula jiraa wuxuuna fahamsanayn barnaamijkiisii hadda hadduu barnaamijkan ka dhigi lahaa barnaamij taxane ah oo aniga taleefanka iga qaban lahaa maalinta wixii ka dambeeyaan wacay taleefanku iga qabo waan arrinta keenta hadda inaan idiin sheego ma ahan inaan codkayga diidanahay arrintaasiiti waa aniga waxaan uga dalnaa waxay tahay gabdhaha in arrintaasiiti lagu cabsi geliyo si arrintan ay u yaraato aynan mar dambe u dhicin ninkan marka barnaamijkaas hadduu to be continue ka dhigi lahaa ama episodo waxay noqon lahayd barnaamij asigana uu ku faa'iido dadka ku xiranna ay ku qoslaan qaarkiis laakiin gabar ayada baxday taleefankeeda qaadatay gurigeeda gashay albaabka xiratay salaad hadda ka baxday salaadeeda dukatay kaamira inta tagtay shukumaanadeedii iyo saabuunteedii iyo maacuunteedii iyo soo duubtay iyo qaadooyinkeedii iyo fasiliinkeeda walaalow aniga ilaa si kale uma dhihi karo hadda ma dhihi karo waan ka xishoona arrintaas gabdhahan sharafkooda la ilaaliyo tahay inay inta soo qaadeen nin u dirto waxay ka dhigan tahay ayadoo dunidoo dhan u sheergaraysay ninka ugu horreeya u diraysa aabbihiisa u diraa walaalkiisa u diraa eedadiisa u diraa adeerkiisa u diraa marka si aan arrintaa u dhicin waxaad leeyahay guys don't do it gabdhaha fiidiyoyada duubaayo qofna rag uma eedi kartaan inay fiidiyoyada idinka duubaan fiidiyowga idinkaa juusgaraystay idinkaa ugu talagalay marka haddaa ugu talagasheenna ma ahan inaan baraha bulshada timaadaan aad tirahda hadda waxaa kaloo jirto inay ka xanaaqeen gabdhaha Kenya ku nool iyo kuwa Ethiopia ku nool ee mushaarkana ka yaraaday maxaa la dhahaa meeshana muddo joogay lacagta laga joojiyey keesas ka halaabeen annaga qurba joogteenna qaar Mareykanka joogo qaar Ingiriiska joogo aniga hadda Sweden aan joogaa laakiin waxaan deganahay Ingiriiska arrintaan intii waxaan kugu sheegay waxay tahay Kenya gabdhaha joogo ee lacagaha laga jiro dhan waxay ku nool yihiin lacago laga soo diro Mareykanka iyo Ingiriiska waliba qofka haddii uu truck driver yahay qofka truck driver-ka ah annagu waa is ognahay truck drivers-ka waxay sameeyaan waxa waaye lacagay u dirayaan gabdhaha baahidooda ayagoo ka faa'iideysanayo gabadhii marka baahan ee mushaar laga rabo ee Kenya ku nool Kenyana aan qaraabo u joogin waxay ku qasbataa fiideo inay dirto nimankaan ay faa'iidada ugu jirto waxay tahay ayagana truck-ay wada saariin inay daawadaan hadda sidaa waxa kugu sheegay micnaheedu ma aha inaan qof xun ahay micnaheedu waxa waaye inaad ogaatid adiga haddaad baahan tahay in lagu isticmaalayo baahidaada ogow marka gabadha Kenya joogtay xanaaqday ama gabadha Ethiopia joogtay xanaaqday ama gabadha Mozambique joogtay xanaaqday aniga lama waxba igama galin waa garan karaa xaaladda ay ku sugantay laakiin waxa iga gal waxay tahay gabadha Soomaaliya joogto ee dhalinyarada ah ee ardayda ah ee sida qaldan sawirkeeda loo helay ama fiidiyogeeda loo helay inay baahi haysan aan jirin oo waalidkeed la nool telefoon haysato inay barnaamij noocaas duubto waxaan u arkaa aniga in arrintaas fajac tahay arrinta kale oo ninkan aan isku qabanana waxay tahay asiga wuxuu rabay gabdhaha in la weyneeyo asiga oo og oo fiidiyoyana ka duubo oo groupna oo aan ku wada jirno oo fiidiyodan lagu soo diro oo listigaas ninka sameeyo asiga yaa munasar inuu hadda yiraahdo marka arrintan si uga baxo inuu hadda maadaama la ogaaday si uga baxo inuu aniga dush iga saar arrinta sidoo ku soo galay sidee aniga aan ku soo galay maaragtay listigiina say ku dhacday listigeena ma listigan dad baa diyaariyo listi aniga le maaha laakiin groupka maadaama rag badan ku jiraan oo dad ganacsataa xildhibaano qaarkood meesha yimaado oo markaasi xaaladda ama fiidiyowga cusub ee maalintaas la soo geliyey u soo doonta ayaa jiro
kolay ma aqaan inaad maqashay in fiidiyoyada gabdhaha beryaan waa batay adiga weliba isweydiisa xaguu ka imaana waxyaabahan inti ma raadisay ma u korgasho mise inta kusoo gaartuun baa ka hadashaa in liis aad samaysataan oo dadka liiskooda idiin soo gudbiyo oo lidin dhaho muuqaaley gataan ayaan rabaaba inaan wax ka fahmo sidee numberkayga idinku soo gaaray macne ma whatsapp ahaana lidinkugu soo diray ma taleefon ahaan see adiga ku aamintiina aniga ahay nin ma aragtay fiidiyoyada gabdhaha qaawan iibsanaya marka xaq baan u leeyahay inaan isdifaaco ma ahan xumaan codkaygana inay dadka qaar ay gartaan ani sharafay ii tahay sababtoo dad waxaa jiro maqano jooga ah codkooda iyo ayagoo joogana aan la garan codkooda ayagoo maqana aan la garan marka waxaan idin leeyahay guys arrintaasiti ogaada munasar aniga asiga fikirka aan ku kala duwanayno kale waxaa waaye gabdhaha in la ammaano anigana waxaan ku dhahay gabdhaha la ammaano video kuma gadmaayo videogaaga wuxuu ku gadmaayaa gabdhahoo la caayo la jafo ayagana hadhowdii markay maqlaan si videoyada ay u joojiyaan marka intaas bay ahayd ninkaaniiti munasarna waa ninaan wada shaqayno waa nin walaale haddana haddii uu rabo imaanshaha qurbaha uu ku imaan lahayne aniga waa kala shaqaynaa lacagaha hadduu rabo youtube inuu sameeyno barnaamij noocaan uu sii weynayn ani diyaar aan u ahay laakiin aniga youtube maanta cid iga hortaagan mal ingiriiska aan ku noolahay akaan wuxuu yahay mala waa furan kartaa inta badan laakiin ma haysido markaa shaqaynayso marna wadada aad saaran tahay marna gurigaaga waqtigaaga waa yaryahay laakiin muhiimaddu waxay tahay maxay ujeeddadan tahay ujeeddadan waxay tahay inuu qofna runta u sheegay gabdhaha qofna uu gabdhaha difaaco waana arrin aan isu ogeyn waana the same thing fiidiyoyadii aan xamar ka duubi jirnay oo idaacadda oo nala soo daynaya nin dowlad aan u shaqaynin qurbo ku nool fiidiyogaas ma heli karo fiidiyogaas waxaa heli karo ninaad is ogtihiin oo dukaankaaga aad soo duubtay adigaa jeli karo farankiyo badan baa jiro marka ninkan waxaa isaga qaldan saaxiibkay wariyanimada iyo waxaa isaga qaldan youtubernimada marka ninkan wariye youtuber ah waaye ma aha wariye soomaaliyeed ma aha idinka marka ogaada qofka markaasa waxaa la dhihi karaa wariyahan idaacad hebel u shaqeeyo wariyaha inta rugcadaaga ahaa sida cagta xaaji oo kale sida ayaanle oo kale sida maxaa la dhahaa cabdixaafid oo kale nimankaas idaacaday ka soo shaqeen waa la yaqaanaa laakiin nin youtuberna le ah oo wuxuu soo qaadaba youtube kula ordaayo turkiya joogaa ninkan qamiirkaa dhibay macnaha aniga waxaan u fahmay ninkan rootiga badan iyo beeniska badan ee turkiga laga cunaayo ayaa dhibay hadda ciwaanka kale xaaska dani leeyahay ee tiktok uu leeyahay oo kale dad badanaa ku xiran mana oga qofka uu yahay dadka kale barnaamijyadooda soo dhigaa si uu fiidiyoska u dheereeyo marka meeshan waxyaabo badan baa jira technology loo isticmaalo aniga meeshaas aan kaa soco video ma iibsado aniga gabar miskiina videogeedana ma iibsado sabab igu kalifaysana ma lahan maxaase kaga doonaa video inaa iibsado